gobonimada iyo xornimada ay ku faanaan dadka Soomaaliyeed waxa dhaliyay 13 qof dhalinyaro Soomaaliyeed ah kuwaas oo lagu magacaabi jiray SYL waxay xoog saareen in dalkooda ay ka kiciyaan cadawga iyo gacmihii shay ee dalka haystay wayna ku guuleysteen haddaba waxaan idin hayaa caawa dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Fahad Shaakir Xaji Xasan kana faaloonaya oo laba dhigaya wadaniyada waxa la yiraahdo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walad islaam ya dhamaantiin walaalayaal waxa jecelahay ka hadlo qodob yar oo muhiim ah oo ku saabsan wadaniyada ama wadan jacaylka. Wadaniyaduna waxay tahay qofku inuu jeclaado kuna farxo kuna maqsuudo wadankiisa. Dhinaca kale uu ka murugoodo kana xumaado kana yaqsiido markuu dalkiisa dhibaato ku jiro. isku dayo qofku inuu wadankiisa muwaadinka wadankiisa dhibaatada ka saaro. wadaniyada iyo wadanigu way kala duwan yihiin. wadani kastaaba waa muwaadin laakiin muwaadin kastaaba ma aha wadani. haddaad iminka wadan dibadda tagto oo 10 sano joogto waxa lagu siinayaa sharciga wadaniyada laakiin ma tiid wadani. inaga dhibaatada ugu weyn haysta waxay tahay sanad kastaba waxay naga tagaa 12 dhalinyaro ah oo ah maskaxdii muruqii iyo maalkii beritoole iyaga oo aadaad wadamo shisheeye. sanadkan dhinaca kale sanadkan waxa soo noqda waxaan 200 gaadhay dalkii dib ugu soo noqda. taasina waxay keenaysaa dheelitir la'aanta inuu wadankii noqdo meel cilaa oo bilaa dhalinyaro oo xoogga uu ka maqan yahay. laakiin runtii waxa la moodaa waxa fahansan wadaniyada iyo qiimaha ay leedahay macaankeeda ninka reer Falastiin ama reer Kashmir ama reer Syria oo marka uu sheegto wadanka qiimaha uu leeyahay ciidu markaas uu ilmeynaya uu ooyaya muhiimadda ay leeyahay wadaniyadu iyo wadanka hooyo. dhinaca kale hadda la hadasho ama aad wax ka sheegto wadankiisa ninka Russia ama ardayga reer Turkiga waxa laga yaabaa gacanta inuu ku qaado uu ku dilo. laakiin haddaad wax ka sheegto madaxdiisa macna weyn u sameyn mayso. waayo waxay kala barteen qiimaha uu leeyahay wadanku iyo siyaasadda. siyaasadda mas'uul kama aha laakiin wuxuu mas'uul ka yahay wadankiisa. waxa u fududaysay una saashay waxay tahay markii ay yaraayeen dugsi hoose dhexe sare ilaa jaamacad waxay baranayeen wadaniyada. waxay baranayeen ethics-ka sida wadaniyada qofka sida wadankiisa leeyahay inuu wadanku halka uu ka soo jeedo halka uu ka barbaaray iyo halka lagu aasi doono. taasi waxay keenaysaa qofku inuu wadankiisa u jeclaado. innaga wax dhabarka naga jibiyay ee bilaa qiimaha naga dhigay waxay tahay ma naqaano wadaniyada. waynu sheeganaa laakiin ma naqaano waxa macnihiisu uu yahay wuxuu xambaarsan yahay. waayo qofnaba waxaan filayaa qofna kuma dhici karo qoyskiisa inuu khiyaamo ama uu ku sameeyo musuqmaasuq ama uu qori u qaato. haddaynu ogaan lahayn wadaniyaduna waxay tahay qofna qori uu qaadan lahayn mas'uulna muu musuqmaasuq lahayn wadankiisa cidna wax kuma sameyn lahayn. fariinteeda ugu weyn ay tahay inuu gudbiyo waxay tahay dhalinyaro inuu wadankeena u kacno wax u qabano waxna ka qabsano markaas inuu qiimo yeelanaynaa. markaas aynu wadan kala tagno oo geeska Afrika ama Afrika ama wadamada Carbeed ama Yurub ama Mareykan markaas noqonaysa qof qiimo oo loo soo istaago. markaas noqonaysa qof istaahila gacanta la saaro oo gacanta markiiba loo dhiibo. laakiin haddii aynu kala tafaarugno oo aynu tii kala jeesano wax macno weyn sameyn mayso. marka inaga iyo adiga iyada aynu isku tagno aynu la mid noqonaynaa Tanzania, Qatar, Korea Koonfureed iyo Sweden.